بسم الله الرحمن الرحيم waa Siyaad Cali Yuusuf mar kale jecel inuu ka hadlo ama soo gudbiyo arrimaha ku saabsan tiknoolajiyada sida caadiga noo ahayd marka maanta waxaan eegaynaa awoodda ay leeyihiin shirkadaha tiknoolajiyadu ama baaxaddooda iyo powerka macnihi awood marka laga hadlayo dee waa power baa laga hadlaya macnihi waxaa laga hadlayaa heerka ay gaarsiisan yihiin awooddooda oo dhinac kasta marka loo eego dhinaca dhaqaalaha hada waa ognahay laakiin dhinaca raadka ama influencega waxa la yidhaha for example hadda tusaale haddaan usoo qaadano labada ugu waaweyn oo aynu naqaano Soomaali haddaan nahay ama caalamka guud ahaan laga isticmaalo sida Google oo kale Google markii waa shirkad weyn laakiin Google keliya google.com yani search engine-ka keliya haddii la fiiriyo waxaad arkaysaa macnihii computer kasta oo qofka uu haysto maanta khaasatan dee Africa Asia inta u badan markii laga reebo China iyo Ruushka iyo meelahaas oo iyagu iska xadida oo aan ogolayn macnihi hadda China oo kale kama jiro Facebook iyo Google midna kama jiro labada ugu waaweyn adduunka oo maanta midna social media yahay oo Facebook midna yahay search engine-ka ama markii wax la raadinayay internetka wax laga raadinayay marka awooddooda waxay gaarsiisan tahay hadda Google oo kale maalintii ilaa 8 bilyan oo search ayaa la sameeyaa marka statisticada markaad fiiriso 8 bilyan dad 4 bilyan ka badan baa isticmaala oo si joogta u isticmaala daily ah waad aragtay dee computer kasta iyo mobile kasta waa ku jira mobileka haddaad fiiriso Google waa ka helaysa internetka haddaad ka dhegaysanayso videogan waxa waaye Google baa soo martay ama search engine-kiisa ha ahaado ama ha ahaado Google Chrome browser-kooda website-ka lagu galo browser Google Chrome ha ahaato dhinaca application-adooda kale oo qaarna free yihiin qaarna lacagta yihiin sida mataqaanaa Gmail oo kale Google Mail iyo Google Docs iyo maaragtay kuwan workspace-ka ay dhahaan oo maaragtay sida Excel-ka iyo Word-ka oo kaleeto ugu shaqaysan karta Google maanta so maaragtay haddaad Word iyo haysan ama aadan haysan computerkaaga kugu jira Google Docs baa isticmaalaysa Google Sheets baa isticmaalaysa dhinacii Google Docs document waxaa isticmaalaysaa sidii Microsoft Word-ka oo kale isticmaalaysa Google Sheets-na waxaa isticmaalaysaa sidii Excel oo kale iyo saas oo kale presentation-kii wuu leeyahay wixii oo dhan buu leeyahay marka Google Workspace baa la yidhaahdaa marka in badan waa free oo laakiin shirkadaha iyo cid kasta oo markaa doonaysa iyadu inay shaqo inta ka badan ay qofka u baahan yahay rabto inay samayso waa ogtihiin lacag bay bixisaa monthly charges baa laga qaadayaa ama email ha ahaado ama kuwa kale ha ahaado iyo application-ada kaleeto oo dee shaqooyinka lagu qabsado marka waxaas oo dhan markaad isku soo dardarto waxay ku tusaysaa shirkadaas yar ama kambanigaas gebigiisa oo ku dhisan internetka ku dhisan ile Google haddaad internet haysan ma jiro dee Google macnihi computerkaaga caadiga ah hadduu ku jiro oo internet connection haysan miyuu kuu shaqaynayaa kuma shaqaynayo wuxuu ku shaqaynaya waa internetkina maanta waa kaas oo lagama maarmo qof kastoo caalamka jooga waxa weeye wuxuu rabaa inuu ama wax daawado ama wax maaragtay la xiriiro ama marka halkaas waxaad ka fahmaysaa awoodda intay leegtahay shirkadaas ay leedahay just search engine-ka keliya meesha simbalka oo ereyada lagu qorayo oo marka kuu soo qabanaya ama kuu soo dhaweynaya wax kasta oo internetka markaa aduu ka baafinaysa keywords baa la isticmaalaa sida caadiga iyadoo arrimo kale marka search-ga iyo sida loo isticmaalo waxaas laakiin ujeedku waxa weeye powerka ama awoodda ay shirkadi leedahay ama technology-da kambaniyadu ay haystaan wax la soo koobi karo ma taas maxay marka keenaysaa inay iyagu awooddoodu inay gaarto heer ay xataa waddan dhan internet ka xanibi karaan gebigiisa sida hadda ka hor ay Google ku samaysay iyo Facebook weliba Australia ku sameeyeen Australia lagu sameeyay
anna 2021 miyay ahayd mise 2020 Australia ayaa waxay tiri shirkadihii wax soo saarayay waxaan ka wadaa broadcastingka ahaa traditionalka ahaa oo sida joornaaladii tviyadii raadiyaashii contentigoodii oo dhan waxaa laga isticmaalayaa through youtube iyo facebook iyo applicationadooda laga isticmaalaya oo shirkadaha naftooda ayaa dee isticmaalaya si macaamiil u gaaraan markaasna qiyaasta waxay ahayd 40% dadka jooga Australia inay Facebook oo kale isticmaalayeen oo contentiga ka access gareynayeen dowladda isticmaalaysa cid walba isticmaalaysa macni website-koodii iyo waxoodii waa leeyihiin laakiin dee xaggay wax ku xayeysiinayeen xaggay ku link gareynayeen page bay ku lahaayeen page-kooda marka contentigii marka ay dhigaan systemkooda isla markiiba wuxuu ku laga daawan karaa Facebook ama bahalka marka waxay tiri marka lacagta okay meesha la isku qabsaday waxay lacagtii xayeysiiska inteeda badneed marka waxay aaday Google iyo Facebook bay aaday contentiga iyo waxa la quudanayo ama la daawanayana dad baa ku bixiyay efforts ku bixiyay oo u dadaalay oo journalistyaal ba ka shaqeeyay dad professional ah oo hadday journal ahayd iyo hadday TV ahayd iyo hadday raadi ahayd marka waxay dhaheen dee saas maaha lacagtiina xaggay aaday oo shirkadii xaggay wax ku xayeysanayaan sababtuna waxa weeye dadkii baa jira populationkii baa jira maaha keliya populationka loo baahan yahay kuwa jooga Australia keliya maaha waxaa loo baahan populationka adduunka kala jooga Australia ku xayeysanaysa iyadiiba shirkadii Australia jaamacadaheedii iskuulaadkeedii wax soo saarkeedii kulli waxay saaran yihiin online weeye laakiin online say u gaaraan dadka kale waa in laga helaa Google waa inay lacag siiyaan oo marka iyo Facebook iyo si xayeysiiskooda u gaaro meelo kale inagu weli Soomaali haddaan nahay saas xoogaa ma fahansanin laakiin adduunka dee lacagta ay samayso Google ayay ka samaysaa xayeysiis ka samaysaa oo dadku ay ku haystaan shirkadu malaayiin billions sanadkii faa'iidada kaliya heshaa 100 bilyan meelahaas markii laga reebo macni waxa soo gala guud iska dhaaf faa'iidada net 100 bilyan iyo Facebook iyo kulli inta badan waxay ka timaadaa Google way search engine-ka way waxyaalaha kale toodii service kale ka yimaado waa jiraan laakiin 25% waxay ka timaadaa kaliya YouTube kaliya ka timaadaa YouTube Google baa iskale marka saa markay tiri ayaa dowladdu Australia waxay tiri waa inaanu shirkadihii Facebook iyo baarlamaanka sharci mariyeen ah in Facebook iyo Google labaduba ay lacag siiyaan dadka Australianka lacagta ay ku xaysiistaan qaar ka mid ah inay shirkadaha contentigooda la isticmaalayo ay siiyaan marka Facebook iyo Google labaduba waxay dhaheen maxaa ka hadlaysaa shirkadaha iyaga noo baahan oo wax nagu xaysiistaan xabadan kama lihin cashuurna waa bixinaa waa sax cashuur bay bixiyaan oo Australia iyo UK iyo waddan kasta oo dee dadka jooga ay isticmaalaan hadda Soomaaliya kama jirto sababtoo ah weli systemkeeni ma habaysana mana la garan karo hadda inta miyaynu lacag ku bixinaa horta free baynu ku isticmaalnaa laga yaabaa inta badan oo shirkado badan wax ku xaysiistay haddii jiri lahayn markaa oo dee xafiisna kuma leh laakiin shirkada waddamada waaweyn qof kasta oo wax ku xaysiista ama wax ka gata productiga ka gata oo reer Australia tusaale ahaan waxa weeye ugu yaraan lacagtii cashuurta maxay ahayd faadkii baa saaran oo dowladdu helaysa marka adigu arrintii waxay gaartay heer Google iyo Facebook labadu ay dhahaan internetkan Australia dhan internet ka saareen waayo 90% above 90% adduunka marka wax la raadinayo Facebook baa waxaa la isticmaalaa Google search marka hadduu blog gareeyo Australia waa khalaas hawada ka baxaysa search engine miyay samaysan kartaa billions ku bixin kartaa oo dhisan kartaa oo hadhow caan noqon kara maya ma gaari karto marna arrintii qiiqir marka dambe adigu waxay u soo dacwoodeen Mareykan iyo Yurub iyo meel walba ka qayliyeen wararkooda meel walba ku qoreen hatta hadda goor waa ka qoreen sheekadaas waxbaan ka qoray oo Facebook iyo meelaha iyo aan website ku qoray يعني heerkaas si u dareensiyo dadka macnaheedu awoodda shirkadahan ay leeyihiin aad moodayso iska just waxba adu aakhirkii waxay noqotay sharcigii waa baaskareeyeen Australia Google baa marka hormaray oo wuxuu yiri okay waxba anaga sharcigan iyo nama khuseeyo laakiin shirkadaha ayaan la macaamilayna oo wixii markaa
wada shaqayn baan yeelanaynaa wixii aan siin karno oo contentigooda wixii isticmaala oo marka xayeysiiskii mara iyo waxa iyo waxbaanu siinayna Facebook waa iyada ugu turneed xoogaa is adkaysay laakiin markii dambe iyaguna waa yeeleen oo dee maraykankii iyo dee waad garanaysaa waa isla reer galbeed waddan kale xaguu joogaa marka afrikaan iyo dad kale iyo waxaa sheegaysa inaad bloggaraysid gebigoodaba hawada ka saartid oo tirahdid nagala taga bixin iyo inaad maaragtay iyagu waxsay rabaan yeeshid wax kale ka dhexeeya male marka 8 billion searches a day waa google mara a day waa hal maalin inta dad wax ka raadinaya macnaheedu intaas marka application meel walba ku jiraa okay taas waxay keenaysaa marka awooddaas uu leeyahay Facebook waa sidoo kale 4 billion people dad baa isticmaala apps-kiisa kale sida WhatsApp waa ogtihiin oo qof walba oo Soomaaliya maanta waa WhatsApp buu isticmaalaa internetka ku cid rabo kula hadlaa masaajida ku dirsada wax oo dhan informationkaas marka iyo awooddaas oo dhan shirkadda waxay siinaysaa inay waxay doonaan iyo cidday doonaan ay target gareeyaan oo waxay rabaan ka dhaadhiciyaan waxyaalaha hadda dadka kaga dhigaya soo koobiya kaga dhigaya inay qabatimaan waxaan macnaheedu social media la qabatimo ama daawashada fiidiyoyadan tirada badan waxa kan oo dhan waxa keenaya waa kambaniyada iyaga ka shaqeeya waa algorithmkooda waa systemskooda because qof kasta da'diisa meeshuu degan yahay wuxuu uu maaragtay qoray ama uu raadinayo kulli way garanayaan way ogyihin adiga kaa ogyihin naftaada kaa ogyihin iska daa wax kale heerka teknolojiyada ay gaarsiinta marka waa soo dhaaftay dowlad iyo group koox iyo waxa iyo waxay maraysaa qof gurigaaga carruurtaada inaad markaa mobilkooda haystaan cidda la sheekaysanayaan waxay daawanayaan iyo kulli iyaga khaas u tahay iyaga specific u tahay marka waa awood ballaaran aad u weyn oo u baahan in la og yahay oo Soomaali guud ahaan ay samaystaan technology-dan dhinaceeda fiican inay maaragtay oo ah in computer labs for example iskuulka loo sameeyo iskuul kasta haddii 50 computer 40 computer loo sameeyo Soomaaliya oo dhan hoose dhexe sare intaasoo kun oo dhalinyaro oo ayaa maaragtay technology-dan dhinaceeda fiican u leexan lahayd oo computer science-ka baran lahayd oo programmadii application-ada samayn lahayd oo berina dhaqaale iyo maaragtay mid naftooda ay mid daleedba soo geli lahaa dhinaca khataraha ka imanayana cyber security-ga iyo weerarada kala duwan ee internetka ka dhaca oo dhinacaas wax ka qaban lahaa oo maaragtay dhinaca dowladeeda dhinaca business dhinac kastaba fahamna yeelan lahaa oo u yeelan lahaa macnaheedu khataraha teknolojiyada waxyaalahan oo ilmahan ama qofku iska mar walba ku mashquulsan yahayna fahmi lahaa inay tahay waxaan wax loogu talagalay hadda for example dalkeena waxaa ka jira wada ogtihiin oo dhibaatadiisu ay meel walba gaartay khamaarki one expert baa naga dhan ku mashquulsan yihiin oo isticmaalaya shirkadaas waxay ku degan tahay bariga Afrika meel ka mid ah waxaan Tanzania inay degan tahay markay bilaabanayso Soomaaliya soo gelisay waa u sheegay garowan jooga markaa dhalinyaro badan waa u sheegay waxaan ruuxa kan waa nili fududeynaya hadda garow inaad joogtaan inaad Soomaaliya joogto inaad xamar joogto inaad Hargeysa joogto lagu ogi si lagu baro marka waxa lagu siinayaa systemkaas lagu aadinaya bas dadka Soomaaliya jooga u fududay bilaa hore sanadka hore oo dhan guulaha ha u bateen maxaa la rabaa saa u soo gasho u qabatinto haddana waa arkaysa laakiin yaa fududeeyey si fudud baa loo blogarayn karaa ma fahmin weli waxay dowladdu u diidantay inay xanibto oo shirkadaha telecommunication just IP ahaan baad u jaraysaa gebiisa waa fududa golis baa xiri kartaa hormuud telesom kulli hadday bloggarayaan abkaas waa hawadu ka baxaya Soomaaliya waa laga blogarayn karaa kusruudkaasu soo maraya waa teknolojiyadu waa waday leedahay message-kan waxay martaa waday martaa wadadaasuna numbers bay leedahay numberskaas iyo waxa keenaya macnaheedu adiga inaad garow joogto ama xamar joogto ama boosaaso joogto ama tuulo hebel joogto ama wadada hebel taagan tahay halka dariiqaas waxa weeye waa numberkaas iyo qalabka kaleeto oo gudbinaya message-kaaga ayaa sheegaya meeshuu yaallo waa system lagu dhiso inbuilt waa ku dhisan yihiin routerskii waxaan arkaysa iyo taawaradaani kulli waa nambaray leeyihin telecommunication u shaqeyso saas software-kan waxaan la isticmaalayana waxaas waa lagu program geliyay inuu markaa uu soo qabto meeshaad joogto iyo meeshaad marayso kadibna markaa lagu adeegsado marka khatarahaas
iyo awoodahaas waa in la ogaadaa teknolojiyadu ay leedahay waana in maaragtay qofku waxa markaa og tahay oo garanaysid xataa adoo isticmaalaya laakiin og tahay iyo waxa weeye wixii lagaaga sheego ama aad markaa digtoonaan baa ku gelaysa laakiin markay iska tahay iska dhex dabaaliso hadda caadi soomaalida tahay oo hadda waa arkaysaa qofku nin baa meel iska soo fadhiisanaya wuxuu rabo iska sheegaya kadibna waa maxaa la yidhi saasaa la yidhi hebel baa yidhi baa la leeyahay hadduu doono qofkiiba ma baha codkiisa waa la isticmaali karaa wixii sawirkiisa la adeegsan karaa ama qofkan asagaaba ahba inuu maaragtay qayb ka ahba inuu beentan sheego ama waxa haddii marka inaad hore ka gudbiso ama qoraalkan qofkii qoray ma asagii baa maya wax badan oo waxa marka mugdi ah oo khatar ah oo weligii hore waagi hore aan jiri jirin ama adkayd ayaa maanta ii fudud in la sameeyo oo la yeelo oo nooc walba leh dhinac diimeed dhinac akhlaaqeed dhinac kasta dhinac maal dhinac mataqaana maskaxeed kulli marka hala ogaado teknolojiyada hala barto hana loo yeesho ogaal iyo maaragtay faham insha allah iskuulaadkeenana aanu dhalinyaradan aan barno dhinaca fiican ee computer science iyo teknolojiyada si uga faa'iidaystaan dalkuna uga faa'iidaysto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu